hay-adaha amnigana waxay amar u qabaan laga bilaabo 24 birita ah oo aan bilaabi doono rinjiyeynta iyo kala raynta mootooyinka la bilaabi doono cidii isku diiwaan geliso kala risata mootadeeda iyo ahlan wasahlan laakiin mooto aan ahayn ama mooto aan bi ahayn magaalada kama shaqaynayso hadii ilaahay yiraahdo maanta oo axada oo ku beegan 23 bisha afraad 2023 shirkaan qabanayno shirkeena jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay howlaha socday bariyahan oo ku saabsan arrimaha bajaajta golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay soo saartay 30 March amar ka soo baxay oo lagu nidaaminayo mooto bajaajta runtii waan la soconaa bajaajtu inay tahay shaqo abuur dhalinyaro badan ee Soomaaliyeed ee baagamudo ah inay shaqo u noqoto laakiin haddana dawladdu sideeda waxaa mas'uuliyad ka saaran tahay mar walbaba amniga nidaaminta kala dambeynta isu socodka ayay mas'uuliyad ka saaran tahay xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay soo saartay awaamir ku wajahan arrimaha bajaajta oo isugu jiro madabeynta iyo hakinta soo dejinta sidaa darteed waxaa loo xil saaray gobolka Banaadir inay fuliyaan amarada noocaas ah ee ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya gobolka Banaadir isagoo ka duulayo wuxuu soo saaray warqad lagu waqtiyeynayo bilaabista fulinta amarkii ka soo baxay golaha wasiirada oo quseeyay madabeynta ama rinjiyeynta iyo kala raynta siinta A iyo B mootooyinka saan la wada soconaba mootooyinku magaalada waa ku badan yihiin ilaa tiro 50 kun ku dhow ama kaba badan ayaa lagu sheegaa suuragal maahan marka magaalada iska ciriiri ah wadooyinka xaaladaha aan ku sugannahay duruuftana haysato inay halkaasi maalin kastaba isku dhacyada shilalka amni darrada waxyaabaha u sabab ah waxaa ka mid ah jaamka iyo zaxmada faraha badan si loo yareeyo jaamkaasi dhalinyaradii shaqo abuurka u ahaadna aan loo wada joojin lama wada hakin mootooyinka lagamana saarin suuqa mana shaqay karaan lama dhihin laakiin waxaa awaamirtu ay aheeday A iyo B in laga dhigo oo gruubna A oo maalin shaqeeyo B-na ay maalin shaqayso sidaa darteed niman danaystayaal ah oo aan ognahay inay gacmo shisheeye u shaqaynayaan ciday doonaan ha ahaadaane ayaa ku soo dhex gambanaya mar kastaba ku soo dhex gambanaya markaasay waxay leeyihiin shaqo abuuray ahayd dhalinyaraha baagamudo ah dadaa shaqadii laga joojinaya lacagaa nagala qaadanaya sabdii axad lama shaqaynayo 15 maalmood haddiina lasoo reebo baa ciladaa geli karto saanay tahay caanadiid maqaarkoo meelaha dulduleela ka dayaha layidhi marka caanadiid warkiisa kuma jirno dowlad amarkeedna waa fulin amar dowla mudeec ninkii diido dabaal waagan yaraynan maqli jirnay ilaa haddana waa sideedii annaga awaamirta soo baxdo oo dowladda ka soo baxdo waxaan ku qasbannahay in la dhaqan geliyaan ku qasbanna waana dhaqan gelinaynaa hay-adaha amnigana waxay amar u qabaan laga bilaabo 24 birita ah oo aan la bilaabi doono rinjiyeynta iyo kala raynta mootooyinka la bilaabi doono cidii isku diiwaan geliso kala risata mootadeeda iyo ahlan wasahlan laakiin mooto aan ahayn ama mooto aan bi ahayn magaalada kama shaqaynayso hadii ilaahay yiraahdo taas waxa waay qandiga jirida ka dhigta maxaa yeelay la siinayaa waliba lambaraa la siinayaa taariikadeedana waa la muujinayaa si aan amniga dadkayna shacabkan masaakiinta ah shalamaana darad iyo dilama maalmood ka hor maata bajaajad wax iskool bulisiyo isku qarxinaysay eeday maalin kastana waxa daroogada loo soo dhiibo waxa qashika loo soo dhiibo qayb ay ka yihiin
annaga kulligood waa malihin dad badanoo wanaagsanaa ku jiro laakiin dadka wanaagsan waxaa ka dhex kalluumaysto kuwa xun kuwaas xun sidaan u soo qabanno muxuu ahay wixii madaxweynaha ugu dhawaaqaya qolihii oo kale maxay ahaayeen garawaayadu meel kastay gelayaan sidaa darteed waxaan rabnaa inaan mootooyinkii la kalareeyo ciddii u hoggaansami weyso ama ciddii isku dayda inay mudaharaad iyo abaabul iyo rabshado iyo ay ka horgeyso xabsigay tegaysaa sharcigaana la tigsa doonaa mana u aabba yeelayno waa dareemi karnaa dad unbaa soo qayli doono shaqo kastoo la qabto quruxdeeda iyo wanaaggeeda lagama fikiro laakiin danleeyaa ka dhex kalluumaysato aniga danley dheg shaq uma siino cid kastoo hadashana ma dhegaysano haddaan hadal dadkiisaa dhegaysanhayna shaqabamaba qabanayna soomana raadsanayna inaan shaqo qabanno wax kastoo la sheegay diyaaraan u nahay intaan u jeednana ilaahay ugu dhowaanaynaa inaan shaqada qurxinno oon magaaladayna bilicdeeda quruxdeeda wanaaggeeda amnigeeda inaan ka shaqayno intaas ayaan har habeen u taagannahay waana mahadsantihiin waxaan idinla socodsiinayaa awaamirtaasi waa sidii loo fuliyey cid kastoo ku xadgudubtana xabsigaa lala tiigsanayaa sharcigaana la marsiinayaa